dhalinyarada gobolada galbeedka Somaliland oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay kaga hadleen arrimo kala duwan oo ugu horeyso dhulka danta guud ee maalmahan laga hadalhayay warbaahinta qaybaheeda kala duwan. dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in ganacsatadu ay yihiin kuwa loo baahan yahay inay maalgeliyaan dhulkooda si bilicda kor loogu qaado maadaama dhulka danta guud ay ka mid tahay goobaha ka qayb qaadanaya horumarka iyo bilicda magaalooyinka kala duwan ee Somaliland ku yaala. waa kuwan dhalinyarada gobolada galbeedka Somaliland oo arrimaha iyo arrimo kale ka waramaya. waxaan kaloo raacay qof kasto muwaadin ah oo Awdal iyo Sare iyo Gabiil degan xaq u leeyahay inuu iibsado hadii uu awoodi karayo oo qof muwaadin weeyaan waa tax payer oo cashuur bixiye qof kasto awoodi karaya waa loo ogol yahay inuu iibsado. anagu waxaan ku danaynaynaa waxaan door bidaynaa in maxay magaalada bilicdeeda hadii foorumka fooq 4 ama 6 ama 8 dabaq laga dhiso bilicda magaaladu way kordhaysaa dhaqaale ahaan way kordhaysaa oo dadka ka shaqeynaya dad aqoon-yahanada darbiyada jiifay meelaha jooga ayaa shaqaabo u noqon lahayd intay meelaha joogi lahaayeen. anagu waxaan aaminsanahay oo isdul taagayaa in maanta tahay maalintii ugu habboonayd ee dhulka la iibsan lahaa cidii ugu habboonaydna ay iibsatay sida aan filayo. waxaan si bilaato xaan markasta ugu celinaya waxaan leeyahay hikmadiyeeto dhulalka maxay hay'aday dawladdu ay bixinayso ee gobolada kale hikmadiyeeto taas aan aaminsanay in kasto ganacsada xaq buu leeyahay inuu iibsan karo siina iibin karo taas aan aaminsanahay. waxaan sheegaynaa in aan wax qallaasi ka jirin oo u jeedaan dadka dhulka laga iibiyay ma aha dad meel kale ka iibiyay waa dadkii Boorame deganaa gobolka Awdal deganaa ee ganacsatada ahayd ee magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda ay soo hormariyaan xaq bay u leeyihiin oo dhulka la iibiyay si waxana looga iibiyay sharciga waxana dawladdu uga mas'uula wasiirka hawlaha guud isagana hawshaasi sharciga ganacsatadaas iyo isagu ay u kala dhamaysteen. dibka yooyootan dhul danguuda oo dawladda jamhuuriyadda Somaliland iibisay ayna ka iibisay cidii ugu habboonayd ee ka shaqeyn lahayd bilicda gobolka magaalada ay ka iibisay dawladduna xaq bay u leedahay cidii keenaysa horumar biliceed ama caasimadeed ee dhisaysa dhulka say bilic uga muuqato cidii ugu habboonayd bay ka iibisay sifa sharciyana way kaga iibisay. waxaan leeyahay iyadoo taasi jirto oo digreeto madaxweyne ku soo baxday waarda gobolkan uma shaqeysaan jamhuuriyadda Somaliland baad u shaqeysaan ummadu mid hanii ahaato cid kasto tahayba qofkaasoo jamhuuriyadda Somaliland mid haydin ahaato tifiyada ka hadladana iska daaya wixii bilic ee wadanka ku soo kordhinaysan la yimaada. wadankani bilic buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay shaqo abuur buu u baahan yahay intaasiba maanta way ka muuqataa halka way ka muuqan doontaa bilic baa soo kordhay cidii ugu habboonaydna waa laga iibiyay waana ku soo dhawaynaynaa. waa ku meesha saaxan xukuumaddu bay aflagaadinayeen xukuumaddu waa tii iibisay waa tii dhulka bixisay waa tii lacagta qaadatay marka haddii meeshii maanta aad aragteen saa u mudow inooga dhigayo dhul ballaaran oo ganacsi leenooga furayo inaan soo dhaweynay heedan u tartano ganacsi yaar si aan u sii ballaarino la tartano caasimadaha Soomaaliya maanta ay caasimadii Hargeysa way dhaqaaqday Hindiya la iibiyay hay'adaha iibiyay Hindiya la Hargeysa maanta quruxdeedu wada arkay ina dahabshi wada arkay halka aan iibiyo wax fadhisay soo quruxdu soo kordhay Hargeysa marka waxaan qabaa kan iibsaday hadda iyo kan imika baraarugayba xaq bay u leeyihiin in laga iibsho marka walaalkay hadduu iibsaday inaan ka xanaaqa ma aha dhaas walaalkay looga iibiyana iibsan lahayd wayna meel kale baan helaya insha Allah taasaan qabaa waxaan ku kala fogaanaynaa ma aha ummadana ducfiga iyo xumaanta laga daayo la soo fadhiya meesha. si kastaba ha ahaatee dhulka danta guud ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay dawladda dhexe ay maamusho isla mar ahaantaasina ay muhiim tahay in laga iibiyo ama si ay dawladda dhexe ay dhismayaal ka dhisto si bilicda kor loogu qaado. waa kuwan iyagoo arrimaha iyo arrimo kale ka waramaya. waa Nuux Kadiye telefishinka caalamiga ee Star magaalada Boorama.